waxaan u hambaliyaynayaa si guud ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay ku nooshahay waan u hambaliyaynayaa limaada xubin jirkaaga ka mid ah haddii xanuun ay ka bogsato ama cudur hayay ay ka bogsato jirkaaga oo bogsaday bay la mid walaalaha iyaga reer Jabuuti shacabka iyo dawladda dhammaantood waxaan leeyahay guul iyo wadax ku noolaada annaguna waa ugu hambaliyaynaynaa maadaama xubin jirkaaga ka mid ah inay xoroobeen mustacmarkii ama dawladdii Faransiiska ee gumaysan jirtay maalinku Ilaahay ka dulqaaday ay tahay waxay noola mid tahay xornimadii Soomaaliya qayb ka mid ah marka waxaan u soo jeedinaa halkan uga soo gudbinayaa fursaddan qaaliga walaalaha iyaga reer Jabuuti inay nabadgelyo ku noolaadaan dawladdoodana ilaashadaan walaalahooda Soomaaliyeed ee burbursan ee hadda dawladda ay u dhalatay ay garab istaagaan naf iyo maalba intaas la soo jeedinaa waan u hambaliyaynayaa horta magacayga waa ugaas Cabdullaahi ugaas Basrow ugaas Cali كل مقعدين أفوكاتو بشو وحواي همبليو أيان ليهي تضباتك قرن مضى تبكي كسوق يبقالينا واحا تيارات دي لسو أفدوري ديجي تبكي كقيم قاتا كمدها جيبوتي وحيابا اللي مدنتها أما اسكا مدنها الصوماليا midnimadeeda dadkii kaalinta koowaad ilaa hadda taagan waay ciidamadooda kuwa jooga Hirshabeelle hiil walaal kulli wixii annaga na soo marnay ayagana waa loo abaabulay badi waa wadan waanu ku hambaleynayaa waanu ku faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay dowladda walaalaheena Jabuuti xornimadii ay ka qaadatay dowladda Faransiiska maanta ku aadanay 27 Juun waxaan u hambaliyaynaynaa boqolkiiba boqol waa ummad walaalaheena waa ummad wax badan garab taagan Soomaaliya xornimadoodii maanta ku aadanay 27 Juun aad baan ugu bogaadinaynaa waan u mahadcelinaynaa waan u hambaliyaynaynaa Allahna sanadkan kiisa kale nabadda ku gaarsiiyaan leenahay dowladda Jabuuti walaalaheena hiil walaal aad baan u hambaliyaynaynaa waan bogaadinaynaa waan ku faraxsanahay sanad guuradoodii 27 maanta Juun